ogeysiis waxa la ogeysiinayaa dhammaan bulshooyinka Hargeysa ku dhaqan inay si ballaaran uga faa'iideystaan Dr. Yuusuf Cumar Qaalib oo ah dhakhtar takhasusad sare u leh daweynta xanuunada ku dhaca lafaha iyo qaliimadoodaba inuu muddo aad u kooban u kaaga howlgali doono Hospitalka Ileys Specialist Hospital muddadaas oo ka bilaabmi doonta 7 February ilaa 9 bisha February. Dr. Yuusuf waxa uu leeyahay khibrad shaqo oo kaaga soo shaqeeyay wadamada caalamka kala duwan sida Hindiya, Malaysia isaga oo si gaar ah ugu takhasusay bedelida looyada miskaha iyo xidhida seedaha ee loo yaqaan CL-ka ka faa'iideysi wanaagsan. Assalaamu calaykum magacaygu waa Dr. Yuusuf Cumar Qaalib oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca lafaha iyo qalinkooda. Waxaan muddo kooban ka howlgali doonaa Ileys Hospital ee magaalada Hargeysa. Muddada kooban ee aan joogo waan ku qaabili doono bukaanada la ildaran xanuunada ku dhaca lafaha kuwa u baahan shirib kala bedelka in ruuga loo bedelo iyo kuwa u baahan in misig loo kala bedelo. Dhammaan wixii qaliina ha ahaato ACL-ka ama ruuga iyo garabkaba. Dhammaan wixii la xiriira laabatooyinka hadday noqdo seed aan ku qaabili doono muddada kooban ee aan ka howlgaliyo dhakhtarka Ileys ee magaalada Hargeysa. haddaba hore u soo gaar Hospitalka Ileys Specialist Hospital oo kugu yaala xaafadda New Hargeysa gaar ahaan dhinaca bari ee Bandara Hotel wixii faahfaahin kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda.